وحنا وشك شيء شيء ما كان حسنا وقلوين كده ثلاثة سيدي ولا كل ماي وحنا يقولي وحنا عاد يعتبر جلسي بيقولي أن أديكوا قبل سوماليا ده أو ودن الشيء شوف تهان كعاد هيكستي إن هذا ماركتي إن ما مكودن كان قريب كقاعدته أنا وحنا ما كانش على استبيولي أنا قوم كو إيجي إن سومال نموي وحكله إن أنا قرب حاجة استاجو وحنا كعاون كرنا وحنا كبيدا بيولي ميديها أنا قو أن مركز كنت خلصي وأنا أقوله لا هاي رنتي أرنكاسو مركو قفكو ماركتي مشرحي هاي عاومين كنوع عاصق قيموي بوسينا يا ومركو قفكو يمادو كده هذا وحنا شيء علينا نقرب حاجة استاجو وحنا ما كو عاون كرا وحيسي سيدي لا يدير قلنا أطفر بدن عادي بنقول ما هالنقيا وحسمي برنامج أوجو بدنا يوتيوب كأكارك كتاني بريجي أولو هاللي جسمي عبد القادر بكتم بي وحنو مسؤول كهاميديا تيم كيجا سجى معمول شري سجى نين سجى نهاك أوجو ما هالنقيا ولا يلاحظوا 4 تي في أيوة سمين شري تكنيكالي لكن سبنو وحنيكي لك اللي مدى يسميني وحنو شيء شري وحيابها معناها ميديا كأورنا يو iyo waxyaabaha markay sida filimka loo qaadayo magaalada dhan ma ku wareegno Oslo ana soo gaabinaya marka waxa leeyahay aad baad ugu mahadsan tahay caawimadii intii aad caawisay wax badan bay faa'iideysay waxaana arkaysay gabadha dhalinyaro Soomaaliyeed oo hormood u ah ama u ah role model dhalinyaradana Soomaaliyeed markaas ku dhaqan halkan marka aad baan kaaga mahadnaqayaa imkana talaabo aad u wanaagsan baad qaaday oo ah ba inaad TV u furtay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku kala faa'iideystaan aqoon suudaas hadii noqoto iyo hadday sidii la sheegay cilmiga kale barashada cilmiga iyo aqoonta kala jaarka ay aad baan horta kaaga mahadnaqayaa waxaan jeclahay ku saabsan haddana waxaan ku xujinayaa cali sheekh cusmaan oo ah suxufi Soomaaliyeed kuna hadlaya magaca suxufiyiinta waxaan u hambaleynayaa Nursan TV Cabdiqaadir Abdullah oo muddo soo dhirinaya arrintan aad iyo aad u hambaleynayaa Soomaaliyeed isu keeno wanaaggoodana ka shaqeeyo horumarkoodana ka shaqeeyo haddii Ilaahay yiraahdo mid kale oo aan idin soo gudbinahay waxaan leeyahay horta ummadda Soomaaliyeed ee ku nool inta iyo kuwa Soomaaliya ku noolba intaba inay xiriir leeyihiin ayaa u maleynayaa boqolkiiba mid kale shalay waxaa ku dhintay magaalada Muqdisho suxufi Soomaaliyeed oo dhaw Cabdi Xirsi Cismaan Aadan ayaan halkaan uga tacsiyeenayaa anaa ku hadlayaa magaca suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool Norway khaasatan Oslo waxaan leeyahay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka baryaynaa insha Allah dawladda Soomaaliyeed inay ka shaqeyso suxufiyiinta amaankooda whatever meel kasta ay joogaanba in amaankooda laga shaqeeyo horumarkooda laga shaqeeyo si ay danahooda iyo howlahooda ay u gutaan mid kale oo TV-ga waxaan rajaynayaa insha Allah inuu isku xiri doono carruurta Soomaaliyeed oo ku nool Oslo fahmi karin afka Soomaaliga oo ku adag yahay iyo dadkii waaweynaa si isku fahmi lahaayeen insha Allah waxaan rajaynayaa Cabdiqaadir Abdullah inuu intaas maaragtay oo xoog saari doono sida dhaqanka iyo horumarka iyo sida Cali ka sheekeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. suxufiyiinta Soomaaliyeed oo dhanaynayo aad buu mahadsan yahay haddana waxaan u dhiibayaa Dr. Fahmi oo asaguna ah macallin wax ka dhigi doona TV-ga jahlu dhalaam cilmigu waa nuur waa iftiin jaahilnimaduna waa mugdi gudcura anigu hadal badan sheegi maayo wixii la odhan lahaa waa la yidhi telefishinkii ugu horreeyey xagga waxbarashada iyo cilmiga iyo aqoonta haddii ninkiisa leeyahay ka kaaba dhalinta Soomaalida Norway degan haddii uu caawa inoo furmay waa mahad Ilaahay Abdidoon Cali Cismaan Shuukax Suxufi xildhibaanada aniga baasto bariis muus moos way wada mahadsan Abdidoon oo gudoomiyaha waxa ka codsanaya waan garanayaa imika waqti 3 sanadood laga joogaa habeen igu yiri bal 10 yar oo xisaaba TV-ga iyo duuduub nin beer haysto digaag iyo bakaylayaal iyo waxanaanayaan lugahooda tirtirin habeenkii waan garanayaa mali loo duuban tahay marka digaagii iyo bakaylihii qaarna dadku doorooyin iyo bakayl yiraahdaan aynu tirino sarbeebaha suugaanta mahmaahda murtida inantii inamada la safartay
habeen ka dhan la dhaxaysa aroortu goortu waagu baryatiri waar aynu quraacano bal waxaan weydiinaynaa dadka ku dhashay Oslo waxay cunaanba ma haystaan waa la joogo duurkii goortii la gaaray tiri aynu nasanno geed la harsado mal meesha waa saxara marka utrig buu yiraahdaa noosku utrig erayada noocaasa afka Soomaaliga murtidiisu waa qani علي عثمان وكل يقولي برسالة في الصومالي الباكستاني وحكاها عطسانيا هالكوبيك كل فشل كل هب كل هب وحاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضب قبلها عن لي هاي قضبنا تي في جا قضبنا على شرني قضب ككوبات قبلها عن لي هاي قبل يوم ودن كسته أما تيبي كهذا أما ودنها هذا أما تقنها هذا وحهو يدا كأه ومر والبابا الربا إنه هرو دجان أما هرو سعوديان ودمركا مركان لا يهاي قبلها يهويوينك إسلامها أنا قد أدي ذا كل واسكمت تيبي جو حود كربا قرب استاك كان رجع تي في جا سود دياريي وأن ولا أقانه آد وحلا قابل كرو وضع وحان صوم مري كي ينكب الله بيتك كنولو الصوماليين واتجي حمر كوهجي وعن كوهجي هرجيسة بنت لان تبرهن ويا أكو تجو وصل لابتي هذا سنين تنبحي هذه الليرة waxaan u baxayaa tabliiq nabadayna 25 nin oo adduunka kula jirta oo 5 gabdhiyiin ayaan diyaarinay annagoo dawladda waxba ka rabin oo aan jago weydiisanayn darajo weydiisanayn inaan tabliiq dadkeena u fidino nabadayna كل تام وسيجن دريبة جوجا طليارة جوجا طليارة يريارة مالها في صتي ولا تايتاني قالوا باشي بلن بجوجا مساجد كي علماء بجوجا ده كمان كيصير diversification كهيلا وينا كاسيوا كو والبكسو هذا إلا بشلا واد وضع مسجد كله وكينيسا تكلم حوالي كميريا متومالستو وكلام هو مساجد كه وحكى لكم أنا بريان كريسة يوم بقولنا عشان واجران قاركين الله يله هديله لكن institution كوين كمان كاهن نقدر حياة هو مساجد كان أوجاله علماء الجوجة يضطك الجوجنا أوجاله هديله يلاحظوا مركا أديك إن شاء الله أي واحد وين بالله يكفي ليا وحوين الله يكفي ليا إن شاء الله الله يكهله أما قلنا كل اختيار بانو نهاي هديله يلاحظوا أنا جاي فاضمة يلا سياسيين بانو نهاي بنك كلامنا ضد بروفيشناليست أو ما في شغال وهاي معنا السوق أنا يعني الكلام ريسيرش وانا هاي حزب وين وجامعات هذا الله شيء وحا أردن مركز وحنا جونا يا إن ميديو أي كفايلستان ونفايليان مركز لو هذا تنتهين أكون فرح سنة هنا الوجيدا ونكسنا قرب حلقة إن أمة أهانو أيام لوبة هاي هبركتها أيام مهمة وهذا ما تنتهين bulshada oo dhanka kooban waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weynena baahi weyn ayaana loo qabaa in ay meeliyadu ballaarato qaabka ummadda Soomaaliyeed ay horumar iyo ilbaxnimo cusub u gaaraysan inuu u soo korato ayaa fiican qaabkaas oo ah qaab anshax leh qaab wanaagsan qaab tiknoolajiyada cusub la socon karaya qaab ilaalinaya etiga ama xuquuqda qofka mataqaana qoraaga ah ama qofka mataqaana meediyada iyo qaliga assalaamu calaykum سيجارة وحنا علينا يا ميديا وعيدنا مدرسة بقى قدام خصو رويال تي في قرنك الصوماليات أسجنا وانا رجوجا يقولي بقى النحر ويجنا معركة قيب والشقاق هذا نوع برامج اللي بدرا يوم رياض وعن قصة بدرينا يا أبتدون اللغة waxaan mar labaad idiin sheegayaa dhammaantiin TV-gan waxaa loo furay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Norway ilaa ay muddo aad u dheer 3 sano ah ayaan ra'yigeeda iyo qorshahayga aan wadnay raggii wadana waa ragga ka garbahayga fadhiya
دكتور فهمي علي عثمان عذرة باستو شوكح حسن راستو يرق بدن وكلا هذان مقعدنا هذا والرجي رأي كان إلى قبل قابي قرب كي جنستاج وجددي سقطت عن مركز الشيء جددي سقطت أو حواي وهرمركا عهورتا الصوماليات هالك كلها سيدا أو هرمرين لها وحبرشها نقطة نقنها نقطة دينها نقطة حتى بقى إنك كلي تي في ما هرمرين كار waxaa horumarin kara ummadda Soomaaliyeed oo dhan maabayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan ayaa horumarin kara waa la wada socotaan isuun ma sheegayno dhibaatada nagu haysta wadanka dhibaatada iyo xanuunka wadanka nagu haya ayaa fakarkaas nagu abuuray maadaama ummadda Soomaaliyeed aanu ku kala qaybsanahay reer iyo qabiil oo waliba xataa nin qabiilkiisa dhab ahaan wax ugu wada ee Soomaaliyeed uusan jirin dan gaar ahaanad ku wada wataan haddii la heli lahaa hal reer ee is wada maqla ee hal maamul leh kala dambeeya horumarkooda Soomaali wax lagu faanay noqon lahaay taasuna ma dhacdo xaqiiqdii ma dhacdo ummadaha bini aadanka way isu tagaan way shirkoobaan organization ay samaystaan way isu wada yimaadeen kuwa xataa qabaa'ilka meelaha goobada u wada fadhiya xataa dantaas ma fulin karaan ma samayn karaan horumar qabiilkooda xataa ay dadka ay ka dhasheen ma gaarsiin karaan sababtoo ah dhaqanka annaga aan ku dhalanay ee Soomaaliyeed waxay tahay wax soo golaashadaan iyo xaasidnimo dib inoo dhigayna waa taasa marka igu kaliftay oo fikirkayga ku dhalisay war ummadatan xagee marka wax looga sheegaa meesha kaliya aan ku fikiray wax looga sheegi karo waa TV-ga haddaba ملهي أنا أدين كأسكاري والله waxaan idin sheegayaa wax dhaqaala oo aan ka raadinayo ma jirto TV-gaas oo Noorsom ee aan u sameey bulshada Soomaaliyeed waqtigeyga iyo dhaqaalahayga waan ku fuliyay waana ku bixiyay diyaarna waan waa inaan ku bixiyo laakiin haddii aad adinkana ka seexataan horumar aan gaarayo wax yaraatay ma jirto war qofkii caqli haya qofkii cilmi haya qofkii ummadaas dhalinyarada ah ee ubaxa maanta soo koraysa wax u qabanaya ee Soomaaliga waa albaab u furan waa jid idin furan si aan caruurteena aan u badbaadino halkaas caawa dadka idin la fadhiya wajiyadaas dhalinyarada ee halkaas fadhiya ma taqaanaan waxa ku jira looyaro mustaqbalka waxa ku jira dhakhaatiirtii mustaqbalka way wada bartaan injineerra ku jira waa gabdha indhihiina wada fura dhamaantiin haddii inaga aynan garab qaban haddii aynan caawin weligan horumar ma gaarayno dhibaatada wadankan nagu haysataan nagu haysanayso waxa aan wadankan soo dhex joogay aan bulshada Norwegian-ka ku soo dhex jirnay muddo dheer aan ku soo dhex jiray waxaan ogaaday in ay noo arkaan ummadda ugu liidata ummadaha soo gala wadankan Sri Lanka aan tusaalaydu kugu soo qaadaya Sri Lanka wadankan inala dhigay example aan kugu soo qaadaya Sri Lanka macnaha nation badan halkan degan nationka Sri Lanka waa ummad si free will ah oo macnaha iska wax u qabsaa dhamaantood u wada istaagay nin walbaaba meeshii ku habboonaad ayuu ka qabsaday macallimiinta kulligood nin walbaaba waxa ma 5 saacadood siiya weekii iskuulay furteen kala carruurtooda dhaqankii af Soomaaligi wadanka Norwegian-ka luqadii systemkii oo dhan way wada qaateen kulligood jaamacadaha wada dhigtaan horumarayna wada gaareen yaa gaarsiiyay way marka waxa gaarsiiyay aabayaasha iyo hooyooyinka iyo adeerada iyo abtiyaasha waqtigoodii waxay u horeen inay si iska wax u qabsaan nin walba waqtiga uu hayo nin la amraa ma jiro muddan ayaga ku dhex jiray wallahi nin la amraa ma jiro nin walba wuxuu leeyahay maanta hal igu qoro 3 saacadood ana shaqaynayo mana la heli karo inteenaas hatta nin qabiilkiisa inta meel isugu geeya sameyn kara meel ka meelay waxaan muddo dheer marka aan ka wada hadlaynay raggan aan idin sheegay Cali Cusmaan iyo Dr. Fahmi waxay kamid ahaayeen aqoon-yahanadii Soomaaliyeed Dr. Fahmi wuxuu kamid ahaa macallimiinta dugsiga sare dhigi jirtay Soomaaliya Peter Gondi School ee caanka ka ah ayuu kamid ahaa rag badan oo risuusha annagana way nagu wada dhex jiraan kulligiin way nagu wada dhex jiraan aqoon walba nin walba oo aqoon u leeyahay war walaalayaal waxaan ka codsanayaa juhdigayga aniga oo dhaqaale ka raadinay ayaa waxaan kugu soo horay inaan Noorsom TV idin hirgeliyo qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa marka aqoon iyo cilmi iyo way aragnimo haddaad leedahay meeshaas ku soo gudbi dhalinyarada dugsiga sare dhigata ama jaamacadaha dhigata waxaan ka codsanayaa adinka laftirkiina in aad caawisaan run baan idin sheegaa unka damka halkan fadhiya dhalinyarada halkan fadhisa
وكل دقن بعدها أنك دقن كأن وضعنا وليال هدانا يا دريال هدانا يا أبتيال هدانا إنك الله هرني برشلوني أديك وحين قعد سنة يا مرك هالكم فليه إن عاوسان أو استكتان سيد أو بدبادل هذا أديك أن جدك أنك على إينا راعين كان جامعة دكتور ما دنا تكون في عنتا الدكسي الصراحة عاوي ولا أنت هأوفيرن وأوجا إن إذا أوفيرن قبيلنا إذا شغلنا كل جينا قلبتنا وأوجا يساق في كرتان كدر سيد هرمر وجرسين لهذا ولا لهنا وضد هنا أديك إذا السبع إنك وحنا نقدر سبعنا قاب بدنا عنو قلنا جبنا عنك أبي أدار أووي أبتي كله لكن أديك وأكون اللي نكسره إن هرمر أكون سيدا بشدين الصومالي هذا قاعد هو قيرة ينتهي هذا aad buu u mahadsanyahay Cabdidoon haddana waxaan soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeeni cashadii ayaana haddana maaragtay aan bilaabi doonaa insha Allah tacaala aad baan u mahadsantihiin soo dhawaada Somalia, diri diri, ay the